noloshu waa struggle noloshu waa halgan ka nololeed ha jilcin nolosha weligaa macmacaan ha ka raadin iyo wax jajaban iyo wax la isla helo waxa ha ka dayday nolosha adkaysa lagaga hortaga nolosha ku tala gasha inaad si fiican u waajahdo markaasaad guusha ka gaadhaysa inaad waqti yar seexatid waqti badan soo jeed bilaa macna aanu noqon soo jeedaad ka faa'iideysanayso noqdo adii adduunkaaga miduun inaad dhisaysid labadaba inaad wada dhisto fayda faraqta fansad hadaad soo faariq noqoto cibaadada ku daal baa la yidhi caqabaadka idinku hor yimaadana jiddiya kala hortaga adkaysi ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay yaa yaxya khudh alkitaaba biquwwa nabi yaxya kitaabka qaadataaba ilaahay leeyahay jiddiya si adag qofka dhalinyaradii waa waqtigu ugu xooga badnaa ee yuu noqonin waqtiga ugu jilicsanayde Soomaalidu waxay dhahaan waad baahantahay looma bahala cuno taqaanin mahmaada hadaad tiraahdo waad baahantahay waraabo qalo ama dacwo qalo doofaar qalo saalama yeelo intaad adkaysan kartaa ma is dhowri kartaa la is dhowraa dabcan waxaan ogahay da'da ku jirtaan inay tahay da'da ugu dhib badan leh dhibtaana idinka iga aqoon badan oo idinka dareemayaba laakiin dhibta waxaan leeyahay jiddiya lagaga bixi karaa jiddiyadu waa maxay waa si dhab oo aad ula dhaqantid sidaa ogeed waxaan idin leeyahay xalku waxa weeyaan inaad programmed noqoto qofku jadwal nololeed inuu leeyahay waqti uu akhriyo waqti uu seexdo waqti uu soo jeedo waqti uu wax barto waqti uu wax baadho inaad noloshaadu jadwal leedahay labo inaad ilaahay ku xidhantaabay u baahantahay oo aad ilaahay xasuusatid wax kastaba oo xumahan iyo nafti iyo shaytaan markay kuu sheekeeyaan alle aad xasuusatid oo cadaabkii kuu muuqdo oo jannada la waayayaa intay leegtay aad tasawurtid oo aakhira kuu muuqato oo aan doonistan yare nafta quri kuu muuqan iyo macmacaanka inay kaa doonaysa waxa aan sheegayo imika waxaan rumaysnahay haddaa boqolkiiba ka fahamtaan inaa faa'iideen waxaan taa uga jeedaa waqtiga inaad dareentaan weliba waqtigaa dhallinyarada tin waa waqtigaad wax qaban karto idan dhallinyaranimada firaaqadeedu waa waxaan dib loo soo helaynin waa waxay gabayada iyo udabadu intay qayliyaan layta shabaaba yacuudu yowman faakhbirhu bima facala almushiibu ay ku gabyaan waryaa dhallinyaranimadii maalinuu soo celiya day waxay badayaan uga sheekeeya buu leeyahy waxaan idin leeyahay markaa firaaqa waqtiga ka faa'iideeya waxaan leenahay mushkiladda koowaad ayna haysataa waxa weeyaan qaabkaynu dunida u aragno ama u sawirayno ama inoogu muuqataa qaab aan jirina haddaan ku qanco maanta mustafa oo miskiin yaroo madow oo Soomaaliya ka yimi oo wax badan kala garanayno taa uu ninka cad inaad saga shaqeysaa ama iska daba socoto ma adigu dunida maxaad ka qaban karaysaa waxaad cunto u raadi haddaan ku qanco macnaheedu waxa weeyaan intaan dhiman baan dhintay geeridu intaanay iman horteed baan dhintay isla mustafihii yaraaye madoobay ka yimi anigoo ah haddaan rumaysto in dunidan xiliga saaran yaan wax ka bedeli karana waxbaan bedeli karaa waxaan dhegaysanayay nin ka mid ah nimankan madmadow ee Mareykanka ah oo markaa bulshadiisan madow dhiiri gelinaya oo le waxa la idinka dhaadhiciyay in nin madoobi weligiiba mid la dulaysto caynkan oo war weligan baynu ilmo boqor ahayn buu yidhi markaasuu wuxuu soo tiriyey dad madmadow oo madax ahaan jiray iyo waa ka ilaa xad intuu xadgudbay uu yidhi isagu aragtidiisa nebi cadba maynan maqleen nebiyadoo dhammi kalar bay ahaayeen middle eastka iyo afrika meelahaas may ka soo baxeen buu leeyo nebi indha buluuyiba kuma jirin buu soo taagay waxaan maxaa ku kalifay wuxuu rabo inuu dadkiisan u sheego war weligiin baa rag dhalay ahaydeene tahay dib u rumaysta dabeetana caruur ay sidaa u tababareen buu marka dambe microphone la dhex marayaano markaas uu leeyahay wuxuu leeyahay anigu weligayba aabayaashay oo ay ahaayeen kings qofka rumaysan reerahoodii aabayaashii inay talin jireen isna wuxuu ismoodaa inuu talin karo qofka laakiin rumaysan weligoodba in la gumaysan jiro agta hoostooda lagu hayo ay ducafo ahaayeen iminka ninka boqorku dhalay dee wuxuu isu diyaarinaya inuu boqor noqdo soo maaha waa uu qof ka fekeraya inuu boqor noqdo laakiin ninka uu mid dhulka fiiqa wuxuu isu diyaarinayaa isna inuu sanadka dambe fiiqo dabcan haddii qaabka loo tareengareeyo caynkan yahay waxaan leenahay mushkiladda koowaad ayna haysataa waxa weeyaan qaabkaynu dunida u aragno ama u sawirayno ama inoogu muuqataa qaab aan jirina war waa inay ogsoonaataan boqorrada dunida inay idinku tihiin idinkaa muslima adaa muslima muslim baa tahay macnaheedu waxa weeyaan rabbigii dunidan lahaa baad u hoggaansanaatay idan inta dambe waa inay kugu soo daba fayshaa aragtidaa haddaad rumaysanto mas-uuliyad intaa leeg aad nolosha ka rumaysan tahay something waxbaad qabanaysaa markaa waxbaanad soo saaraysaa qof mustaqbalana waad noqonaysaa iyo sidan laydin yasay ee laydin tuujiyey ee qof yaroo madoob oo qaxoontiyo oo Soomaaliya ka yimaad su qaadatay taa meel iska dhig waa kitaab wala kala adoo kitaabka reerkiinu akhriso aha inaad nin raga tahay waxa aan tilmaamayaa waxa weeyaan qofka dhallinyarada tajribadiisu waa yarta waayo nolosha uu leeyahay sanad kasta jirto waxba kugu kordhaya idan waayo aragnimada nolosha uu leeyahay way yartay haddana waxa la rabaa inuu kala miiri karo waxa saxa iyo waxa qaladka wuxuu qaadanaya iyo wuxuu diidayo malakatu tamyiiz inaad dhistaan
in laydin yeedhiyo maaha oo aan idin dhahdo kaasi waa qalad kaasi waa sax ka raac ka raacin laakiin waxa saxa inaad miisaanka adigu haysato inaad diinta si fiican u fahamtid adigu markaa aad garan kartid kana waa buusha kana waa sax inaad tidhaahdid adigu aad kala sooci kartid waxaan leeyahay markaa dhallinyarada waxaa ku yar da'dooda yaraanteeda daraaddeed tajaaribtooda ku yar daraaddeed waxa ku yar wax kala sooca laakiin kullama uu qofku aqoontiisa kor u qaado wax badan oo aan ka weyni kala sooci karin buu ka yari kala sooci karaya idan waxa aad u kala fog waxa aan dhallinyaranimada ka sugaynay iyo cumriga wakhtigaa joogaa waxa uu gooyo qiimaha uu leeyay iyo waaqaca ama nolosha aan hadda joogno sida ay tahay waa laba shay oo runtii kala durugsan sidaa awgeed intaanan mushkilaadka ka warramin waxaan ka warramayaa dhallinyaranimada iyo halka looga baahanyay inay joogto marka aan tilmaamo meesha laga rabo inay joogto ayaa waxaa muuqan doona meesha aynu joogno inta ay leeg tahay mase ay u jirto halkii aynu hiigsan lahayna hadafka ahayd intaa kadib baan waxaan isweydiin doonaa waa maxay marka waxa inaga haysta aynu halkaa u gaadhi laana innagu caqabaadkan inu hor taagane xaggaa inoo diidan inaynu tagnaa maxay yihin koo waxaan ogsoonnay qofka bini aadamka ahi ra'su maalka hantida uu haysto waxa ugu qaalisa wakhtiga cimriga la sheegaya waa wakhtiga aad nooshahay ayaa da'd iyo cimrigu ay sheegaysa waa shay qiimo badan oo aakhiro marka la tago kuwii aan cimriga ka faa'iidaysan intay calaacalaan ay odhan doonaan rabbana akhrijna nacmal saalixan hayra aladii kunna nacmal ay ku warwari doonaan nimanka gaaleed ilaahayow naarta naga saar waxaannu soo shaqayn doonnaa wixii aannu qaban jirnay waxaan ahay yacni waa wakhtigii un waxay u calaacalaya wakhti kale ilaahu nasiih ilaahina wuxuu ugu jawaabayaa awalam nucammirkum maa yatadakkaru fiihi man tadakkar waja'akum الnadiir faduuquu fama lilظaalimiina min nasiir oo miyaanan cimri idin siin baa ilaahay leeyay in lagu waantoobo miyaydan soo noolayn waxa uu nebigu inoo sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayh aakhiro qofku qiyaamaha ma dhaqaaqo ilaa iyo la weydiiyo dhowr su'aalood su'aalaha waxaa ka mid ah can cumrihi fiima afnaah cumrigii oo dhan waxaad ku qabatay waxaa kaloo ka mid ah wa can shabaabihi fiima ablaah cumriga qayb ka mid ah da'da qayb ka mid ah oo ah da'da dhallinyaradannimada la yidhaahdo iyada question gaara bay leedahay war markaad ahayd maxaad qaban jirtay marka hore waxa weeyaan da'dii lagu siiyey oo dhan maxaad qabatay laakiin dhallinyaranimadu su'aal gaara bay leedahay waxa lagu odhanayaa markaad iyada dhallinyarada ahayd ee wakhtigaa joogtay maxaad qabatay xoolahaagii maxaad ku qabatay xaggaadse ka kasbatay wixii lagu baray ee cilmi ahaa maxaad ku qabatay su'aalahaasi waa su'aalo inoo tilmaami kara fatradan ama da'dan dhallinyaranimadu iyo waxay u baahantahy dhallinyaranimadu waa da' u dhaxaysa laba da'ood waa da' dhallaannimo laga soo koray dhallaanka waa taqaaneen ilmonimo carruurnimo xooggaagu iyo caqligaagu iyo maskaxdaaduba marka ay sii korayso ilaa ay gaadho xadka uu ku buuxsamo waxay dhahdaan culammadu dhallinyaranimadu 40 jirka ku dhammaataa allahu aladii khalaqakum min ضacfin ثuma jacala min bacdi ضacfin quwa ثuma jacala min bacdi quwatin ضacfan wa shayba yakhluqu maa yashaa wa huwa alcaliimu alqadiir ilaahay baa le wax ضacfi baan idinka abuuray dabeetana xoog baan idin siiyey xoogga dabadiiba haddana liidnimo kale laydiin celiyey dhallinyaranimadu waa wakhti qofku uu xooggan yahay maskax ahaan uu soo korayo jidh ahaan uu soo korayo hadday dayacanto dhallinyaranimadu waa noloshaada inta dambe khatar badan bay ku sugantay ummad waliba waxaa la yidhaahdaa dhallinyaradeedu siday u eg tahay unbuu mustaqbalkeedu u ekaanaya inta badan dhallinyaradeeda dhaqankeeda thaqaafadeeda aqoonteeda kaljarkeeda dadnimadeeda akhlaaqiyaadkeeda waxaasi hadduu dhisan yahay waa bulsho mustaqbal leh haddii waxaasi aanu dhisnayn ama dhallinyaro faaruq oo madhan ba ay tahay qolof weynuunoo feedho buuran ama qashin uu ka buuxo aanu madhnayne waxbaa ku jira laakiin waxa ku jiro dham waa garbaj xashiish baa lagu buuxiyey ummaddaasi mustaqbalkeeda aad buu u madow yahay sidaa awgeed ayaa taariikhda bini aadamka ciddii wax ka beddeshay taariikhda marka la eego waa dhallinyaro asxaabulkahf oo ummad dhan ka horu yimi maca dowladaheedii maca boqortooyadeedii ilaahay wuxuu ku sifeeyey innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda fitya dhallinyaray ahaayeen baa ilaahay yidhi ilaahay ru'yey ananaanu hanuun u kordhinnay nebi ibraahim isagoo dhallinyaraha buu ka hor yimi mujtamacii oo dhan markay dareereen buu sanamadii u weydaartoo burburiyey qaaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahiim waxaasoo dhammi waa iga muqadamo hordhacaasi wuxuu tilmaamayaa dhallinyaranimadu hadday saxan tahay
ummaddu inta ay hagaagi kartaa inta uu leegyahay aan sawir idinka siiyo saxaabadii nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh ee dunida tan xagga kale u gediday mawaasiintii dunida taallay oo dhan wixii wax lagu qiimayn jiray oo dhan raggii dabagediyey hadday dagaaltay hadday cilmitay hadday aqoontay hadday xadaaratay hadday dadnimatay hadday dhaqantay saxaabada markaa maqashaan ma odayaalma u haysataan dhallinyaray ahaayeen dhowr iyo 10 jiro dhowr iyo 20 jiro ay ahaayeen nimankii dunida dhanka kale u dhigay raggii ugu waaweynaa dhowr iyo 30 jiro ay ahaayeen rag ka mid abubakar iyabaa 37 jir ahaa markuu islaamay cumar nin 26 jir buu ahaa markuu islaamka soo galay cuthmaan wuxuu ahaa nin 20 jir ayaa lagu tilmaamaa علي بن أبي طالب من دورية تبنشروها أفرتا سوا خلفاء أفرتا هاي أبي بكر مو يعني أنت كلبا لحلا تنشر لا تنشر يا دورية تبنشر سعد بن أبي وقاص تدبي تبنشر بوها صهيب وحلوت الماما سقالية تبنشر بوها زيد بن حارثة وحل لا تنشر بوها أبو عبيدة عامر بن الجراح شام نكي فرني حلوت الماما سند بن عمر كوينا تدبي لا تنشر بوها مالها عبد الرحمن بن عوف يا بلال يقول صار كوتشرتو سدن جري هاي الارقم ابن ابي الارقم waxa lagu tilmaamaa inuu ahaa maxay kutub taariikh qaar baa yiraahdo 12 jir baa buu ahaa qaarna waxay leeyihiin ka yara rooraan dhowr iyo 10 jir buu ahaa ragga kani waxay ahaayeen rag yaraantoodii taaba galay iyagoo yaryar bay wax fahmeen iyagoo bay mabaadi qaateen iyagoo yaryar bay mas'uuliyad dareemeen dabeetana mas'uuliyadii bay xambaareen sida awgeed Ali ibn Abi Talib markuu ciidamada muslimiinta hogaaminayay nin dhalinyaro khaybar iyo dhulkan markuu furanayay dhalinyaro ay ahaayeen raba inay jihaatamaan raba inay khayr sameeyaan xad bay gaadhsiisnaayeen isagoo nabigu dagaal galayo uu qaar yidhaahdo yaryartiina idinku hadha ay yidhaahdaan may oo marka dambe mid la yidhaahdo adigu mise jir maata uu yidhaahdo anigu waan qaan gaadho oo marka dambe nin ay saxaabiya la yidhaahdo yaa rasuulullaahi ninka kani maanay qaan gaadhine kani wuxuu yaqaanaa dhugta yacni leebka sida waa nin madaaficda rida yaqaan baa la leeyahay nin si fiican wax u gani yaqaano weeyaan markaasaa la yidhi ninkan wax gani garanaya isagoo ciidanka iska soo raaco nin kaloo saxaabiya istaago wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow kaa aad u ogolaatay inuu dagaalamo anna isaga badna markaanu iskala dhulkumaan dhigaya mar qura ima legdi karo balagdama baa la yidhi ninkii gamuunka lagu qaatay ayaa la isgalay oo dhinacuu dhulka u dhigay adna raac baa la yidhi ciidanka yacni ragga kan yaraan inta lagu reebay laakiin diidan yaraantan inay aqbalaan oo le dad wax qaban kara baanu nahay dad jahaatami karo dagaalamka wax qaban kara waxaynu odhan karnaa muhiimaad waaweyn buu nebigu ragga kan u doortay usaamata bnu zayd inan yaroo dhowr iyo 10 jiro buu ahaa markaasuu nebigu u tilmaamay inuu qoraar rasmiya u noqdo diinta luqada yahuudeed afka cibriga wixii lagu qorayo iyo wixii ay waraaqa u soo diraan iyo waxaan inuu isagu kala tarjumo soo bara baa lagu yidhi barashadiibuu habeen iyo maalinba u xidhxidhay 17 maalmood bay culamada qaar sheegaan 20 maalmood buu afkaa ku soo barta 20 maalmood wax ka yar ayuu af qoraalkii iyo wixii oo dhan ku soo markaa nin nebiga wuxuu qorayo warka waraaqa u dirayo wixii loo soo qoro tarjumayo ka hadlaya waa zayd ibnu thaabit ayaa ninkan aan ka warramaya usaamata ibnu zayd ma waa zayd ibnu thaabit waa zayd ibnu thaabit waa ninkii muhiimada ah qur'aankan iyo ururintiisa iyo qoristiisa saxaabada u xil saartay abubakar uu xil saaray ee cuthmaan uu xil saaray ee muhiimada ah inuu asalka ugu weyn islaamka isagu ururiyo qoro qur'aanka musxafkan aynu hayna ninkii loo xil saaray weeyaan usaamata ibnu zayd isagoo 18 jir ciidamo hogaaminayay mucaad ibnu jabal isagoo nin yara buu cabdillaahi ibnu mascuud lahaa mucaad wuxuu baan odhan jirnay qaanitan lilaahi buu ahaan jiray buu leeyay keligiiba ummadaha nebi ibraahim baanu ku shabihi jirnay buu leeyay fircawnkii ummadda nebi maxamed ee abujahal la odhan jiray laba wiiloo yaroo dhallinyaraa baa ka takhallusay abujahalkii loo taago nebi maxamed maka ka soo saaray ee waxaasoo dhiba waday goobtii dagaalka cabdiraxmaan ibnu cawf iyadoo dagaalka lagu jiro dagaalkii adag yahay buu yidhi baa wiil yar iska idhisoo dhinac taagay dabeetana wuxuu igu yidhi adeer ninka abujahal la yidhahda nebiga caayi jiray baan rabaa inaad i tusto kii anigu aan weli u jawaabin baa mid kale dhinacayga iska kay soo taagay buu oo dhinacay qabta markaasu wuxuu igu yidhi adeer waxaan rabaa ninka abujahal la yidhahda nebiga maagi jiray inaad i tusto waa wiilal yaryaroo iyagu madiina ku koray abujahal